Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada ardayay. Maanta waxaynu samaynaynaa taybilka la yidhaahdo registration baynu waxaan ku samaynaynaa form ama waxaan u aasaasaynaa form. Waxaan leenahay marka koowaad registration table baynu tegaynaa waxaan leenahay open. Qaabkaasoo kale weeyaan taybilkeena. Waxaan doonaynaa inaanu assign garayno ama inaanu nashqadayno form ahaan ama inaanu samayno maxay formkiisii. Waxaanu leenahay waxaynu tegaynaa create tabka la yidhaahdo. Kadibna waxaynu dooranaynaa maxay form wizard. Design form ha dooranin labadan mid ka mid ah ha dooranin waxaad doorataa form wizard. Form wizard markaaynu dooranno halkaa waxaynu kasoo dooranaynaa maxay taybilka magaciisa. Taybilka magaciisa markaaynu soo dooranno waxaanu leenahay kolomadiisi waa kuwane intaasuu ka kooban yahay kulli noo soo move garee. Kadibna wixii aanad rabin waxaad kaga reebaysaa by individual kaasaad waxaad leedahay mousku saaran yahay kili. Kadib photo ay naga raacday waxaan leenahay photada inoo socday oo kasarayn ku soo celinaynaa. Waxaan leenahay ugu dambeyn next. Kadibna halkan waa layout-ka sida aad doonto adigaa u nashqadayn karaya waxaan u deynayaa kulumar. Waxaan leeyahay next. Kadibna waxaan leeyahay halkaa magac u bixiyo waxaad u bixisaa maxay registration maxay form qaabkaas oo kale. Waxaan leeyahay ugu dambeyn maxay finish. Markaan finish dhaho taybilkaygu qaabkan uu soo kacayaa nashqadan uu yeelanayaa. Waxaan doonayaa qaybtan waa qaybtii viewga ama waa interface-kii inaan qaybtii design-ka ee dambe ee laga soo bedbedelayay property-giisa iyo wixiisa oo dhan inaan galo. Waxaan leeyahay laba option baa ii dooran inaan halkaa tago aan dhaho right click kadibna design view ama inaan formka dul tago. Tanaa ii fudud waxaan leeyahay right click kadibna waxaan tegayaa maxay design view. Design view marka aan tago qaybtani waa qaybtii formka laga nashqadaynayay. Waxaan leeyahay ugu horreyn waxaan ugu horreysiinayaa sawirkii qaybtii picture-ka halkan ayna loo keenay. Intaynaan sawirka horta marka hore sawirka saar baynu leenahay. Sawirka inaga delete garee. Waxaanu leenahay maxay kuwaasoo dhanna isku highlight garee. Waxaad qabanaysaa left click kadibna hal mar baad waxaad leedahay yaree qaab dhismoodkooda maxay compressor ku samee. intaa markaad samayso waxaad leedahay intana isku highlight garee dheero waxa aad tidhaahdaa maxay yaree iyagana meelahaas gee. Tusaale ahaan oo kale meelahaasaan geynayaa. Waxaan leeyahay ugu dambeyn waxaan doonayaa inaan sawiro ama intaanan sawirka soo gelin waxaan leeyahay halkan waxaan edit garaynayaa header-ka. Waxaan leeyahay waxa aad tagtaa maxay qaybta home-ka. Kadibna waxaad tagtaa kaa baaldiga ama kaa background color-ka. Waxaad leedahay maxay color-ka ka dhig midabka aad doontaad ka dhigan kartaa. Anigu kaasaan tusaale ahaan oo kale ka dhigtay. Waxaan leeyahay fartana waxaad ka dhigtaa maxay midabka noocaasa. Waxaan leeyahay maxay halkaas tag point-yadaasa wax laga wadaa left click qabo oo ilaa halkaas geey. Markaan ilaa intaa geeyo waxaan leeyahay kaa sare waxaad geysaa xaggaas. Intaa markaan dhameeyo waxaan tegayaa title-ka. Waxaan leeyahay farta waxaad ka dhigtaa size-keeda tusaale ahaan oo kale 36 meelahaas. Waxaan leeyahay waxaad keentaa text alignment ku samee intan waa inta word lagu sameeyo waxaad geysaa center-ka. Kadibna fartana waxaad ka dhigtaa bold qaabkaas oo kale uga dhig. Qaabka marka aynu sameyno waxaanu leenahay hadaba qaybta fields-keena waa qaybtan title-lada magaca hadhow halka first name iyo wax lagu qorayaa halkan weeye halkanna waa halkii ciwaanada waxaan leenahay ciwaanada inoo nashqadeeyo inoo edit garee. Markaaynu highlight gareyno waxaan leenahay maxay background si tusaale ahaan oo kale background-kaasi fartana waxaad ka dhigtaa maxay white mid cadaan ah. Waxaad ka dhigtaa bold. Waxaad ka dhigtaa size-keedana soo kordhiya waxaad samaysaa maxay 16 keen amaba 16 ha geyni 14 meelahaas keen. 14 marka aynu keeno qoladana waynu qabanaynaa waan isku highlight gareynaynaa. Waxaanu leenahay waxaanu ka dhigaynaa iyagana maxay fartooda waxaanu ka dhigaynaa maxay fartooda madowga inoogu daayo. Waxaan leenahay size-ka inoo soo kordhi iyaga size-ku maynu ka rabno waxaan leenahay 14 ka dhig meelahaas. Markaaynu ka dhigno waxaanu leenahay tusaale ahaan oo kale bold-na isagana waynu sameynaa waan isku wada highlight gareynaa waxaan leenahay bold ku samee. Qaabkaas oo kale markaan u nashqadayno waxaanu soo gelinaynaa imika sawirkii. Waxaanu leenahay maxay waxaan tegaynaa tab-ka la yiraahdo ama menu-ga la yiraahdo design. Waxaan leenahay design-ta. Design markaan tagno waxaanu leenahay maxay waxaanu tegaynaa more. Kadibna waxaan leenahay sawir soo geli attachment-ya. Waxaanu leenahay sawirkii sawir ama click baad siin kartaa oo wuu iman karaa ama waxaad leedahay intaad sawirka tagto halka attachment tag
kadibna waxaad qabataa maxay left click qaabkaa u soo jiid sawirka qaabkaa u sawir haddaba si aynu sawirka si waafajino daaqadii propertygeenu soo samaysanayna waxaan leenahay tablekeena imanaynaa right click meel bannaan kadibna waxaan leenahay maxay property ama waxaad tidhahdaa form property form hee property form property markaad leedahay waxaad leedahay soo yara weynee qaabkaasoo kale si waasaca si aynu ugu aragno waxaan leenahay souraska waynu soo furaynaa record souraska waxaanu leenahay maxay horta marka hore aynu dooranno sawirka shayga ilaa aad doorato isbeddel ku iman maayo waa kan iminka control source waa kan inoo soo kacee waxaan leenahay sourceka soo furo waxaad ka dhigtaa maxay photo attachmentigana naga saar way waxaan doonaynaa inaynu background colorkiisa bedelee waxaan leenahay meel bannaan click ama waxaan odhan karnaa intaan halkaa soo furno qaybta detail inoo door detail markaan dooranno halkaa waxaa ku jira back colore waxa aad tidhaahdaa maxay ishaa dambe labada soo fur kadibna kalarka aad jeceshahay ama kalarka aad doonayso ka dhig qaabkaasoo kale kaasaan rabaa tusaale ahaan oo kale waxaan leeyahay kalarkiisii waniga ka dhigee waxaan leeyahay maxay waxaan doonayaa iminka inaan ka saaro navigationiska yarada xagga hoose yaalla waxaan leeyahay tusaale oo kale xagga size-ka soo yaree meelahaas keen waxaan leeyahay maxay navigationiskaan doonayaa inaan ka saaro navigationisku kuweebay ahaayeen waxaan leeyahay control s waxaan leeyahay soo kici sidee baan soo kicin karaa waxaan taabanayaa maxay f5 baan taabanayaa form viewga inoo soo kici form viewgiisi waa qaabkan nashqadan u yeeshay waxaan doonaynaa inaynu ku samayno maxay bob up inaynu jarno oo aynu bob up ku samayno way laba qodobna way jiraan meesha bob up markaaynu ku samaynayno waxaan leenahay maxay waxaan ku noqonaynaa qaybta designka kadibna waxaanu tegaynaa form waxaanu leenahay waxaanu ka tegaynaa maxay waxaanu ka tegaynaa others markaaynu tagno halkaa bob upka waxaanu kasoo dhigaynaa maxay yes way qaabkan markaaynu kasoo dhigno waxaan leenahay control s save garee waxaanu leenahay maxay soo kici formkii markan qaabkaas u soo kacayaa nashqadaysan haddaba si aad u jeedo halkan waxa ku yaala wax la yidhaahdo navigationisku waa aarowyadii laga wadwadayey oo kuwa aynu halkaa ku samaysanayna weeyaan waxaan doonaynaa inaynu inagu mid gooniya samaysano kuwana ka saarno waxaan leenahay formkiina waxaad tagtaa right click kadibna design viewgiisa soo kici waxaan leenahay waxaan tegaynaa qaybta formatka kadibna waxaan tegaynaa halkay ku qoran tahay navigation button waxaanu leenahay maxay mousku ma la socotaan waxaanu leenahay no ka dhig halkaa haddaba la socotaa waxaan leenahay no ka dhig markaynu halkaa no ka dhigno navigationiska waana laga saarayaa waxaanu leenahay marka ugu dambeyn iminka waxaanu doonaynaa inaynu soo gelino maxay bottom way waxaanu leenahay bottomka aynu doonayna inaynu soo gelino halkaasaa laga soo gelinaya design baynu tegaynaa waxaan leenahay maxay bottom click c kadibna waxaan leenahay inta lifti kala qabano halkaa ku sawir bottom qaabkaas oo kale ugu sawir markaaynu sawirno waxaanu tegaynaa qodobka la yidhaahdo waa qodobka labaad record operations waa inaad kala garataa ardayow kategoriyada halkan ku jiree waxaan tegaynaa kuwan waa kategorigii kuwanna waa actionkii waa falkii dhacayay waxaan leenahay kategoriga waxaad inageysaa recordka kadibna falka dhacaya waxaad ka dhigtaa maxay safe ilan waa fale marka wax la safe garanayo ficil baa la qabanaya waxaan leenahay ficilka safe record inoogu samee waxaan ku leeyahay masawir baan kugu dayaa mise qoraal waxaan leenahay qoraal inooga dhig kadibna waxaan tigta saaraynaa safe record kadibna qoraal buu noqonayaa waxaan leenahay next waxaan leenahay finish qaabka markaaynu samayno recordkii safeka waxaanu leenahay maxay waxaynu iminkana soo dooranaynaa recordkii loo yaqaanay recordkii la yidhaahdo tab kalenu soo gelinayo la yidhaahdo delete waxaanu leenahay isaga hoostiisa ku sawir oo qaabkaa ugu sawir waxaanu leenahay sii daa isla halkii baynu ku noqonaynaa record operations waxaanu leenahay maxay delete dooro ila marka hore safe baynu dooranay waxaanu leenahay next kadibna waxaan leenahay maxay text ka dhig kadibna waxaan leenahay maxay next kadibna waxaan leenahay finish qaabkaas oo kale markaanu dhinaacno waxaanu leenahay maxay way waxaanu leenahay next kadib taabkeeni markaaynu qaabkaa u samaynay waxaanu leenahay maxay halkaas geey oo isyar la ekaysii tusaale ahaan oo kale qaabkaas oo kale isu yar la ekaysii markaaynu qaabkaa u dhisno waxaanu leenahay isku dhowee aarowyadana ugu move garee qaabkaas oo kale way qaabkaa markaaynu dhisno weli isma leekay kan yaala durka oo ha isleekaadaan way qaabkaa markaan isu leekaysina waxaan tegaynaa safe kadib halkan waxaynu kasoo dooran karnaa baa kalarkiisa ama wanigii kuuri waxaad tegi kartaa homeka oo eeg laba option baynu kasoo dooranaa kan waxaan leenahay akhtar ka dhig fartiisana maxay ka dhigi qaybta fointiga halkan ka baadh waxaad tidhahdaa fointi color halkan ka baadh halkan bay ku jirtaa fointi colorkuye
waxaanu leenahay hoos u soo soco command-kaasaynu joognaa waxaan leenahay maxay hoos u soo soco font color meelahan ka baadh waa taase waxaanu leenahay font colorka waxaad ka dhigtaa maxay white iminka habkan waan qaybta property-gan ka sameeyey waxaan ka samayn karaa qaybta waxaan leeyahay kan dooro delete kadibna home tag si fudud waxaan leeyahay halkaa aad background colorka tag waxaad ka dhigtaa maxay red casaan ka dhig markaynu casaan ka dhigno fartana waxaad ka dhigtaa maxay white boolna ka dhig rasiin ka dhig marka habkii aan safeta u maray habkan delete-ka u maray waa isku mid adigu kii kuu fudud raac waxaan doonayaa inaan botoma soo gelino botoma yaroo navigationisa waxaan leenahay botonka tag qaybta designka botonka dooro kadibna waxaad tidhahdaa sawir botonkii qaabkaa u sawir markaanu sawirno navigationiska recordsku waa kuwane waxaanu leenahay maxay next first record ama waxaanu tegaynaa form operations markaan joogno halkan waa form sida loo daabaco iyo waxyaabahaas oo dhan halkan waxaa ku jira reportkii oo kale halkan waxaa ku jira applicationadii oo kale waxaanu leenahay waxaanu tegaynaa maxay qaybta ugu sarreysa ee record navigation baynu tegaynaa waxaan doonanaa find record xogta raadi waxaanu leenahay next waxaanu leenahay maxay waxaad ka dhigtaa icon markan picture ka dhigo loogada picture ka dhigo waxaad tidhahdaa finish qaabka marka aynu samayno waxaan leenahay maxay movement ku soo samee tusaale ahaan oo kale maxay ku samee movement yareeyo meelaha xaggan gee way waxaanu leenahay halkaasaynu tegaynaa koonaha waxaanu leenahay maxay sizekiisa yaree way qaabka markaan u yareyno mid labaad baynu soo dooranaynaa waxaanu leenahay ardayu ma kala koobigaraysan karayso operationska shaqooyinka hadhow tole meesha ka baxaye waxaad tidhaahdaa mid labaad soo dooro kadibna new recordkaad joogtaa maxaad doonaysaa ka sare inaad ka dhigto waxaan doonayaa tusaale ahaan oo kale inaan ka dhigo ka sare new record xog cusub soo geli waxaan tegayaa form operations kadibna waxaan leeyahay record operation baan tegayaa ilaa recordka xogtu way ku dhacdaa midna waa shaqadee record operation baan tegayaa waxaan leeyahay add new recordka ugu sarreeya xog kan laga soo gelinayo xogtu waa kaa next baan leeyahay waxaan leeyahay sawirkaa u daayo next kadibna finish qaabkaasu isna u sawiraya waxaan leeyahay yaree qaabkaahe u yaree way qaabka markaan u yareeyo waxaan leeyahay maxay mid saddexaad soo geli ardayo waa shane waxaan leeyahay mid saddexaad oo qaabkaasi soo geli waxaan leeyahay maxay kani muxuu qabanayaa waa printere phone operation tag kadibna waxaad tidhahdaa printing formka daabac printing formka daabac waxaan leenahay next waxaan leenahay formkaasaa la daabacayaa waxaan leenahay kani waa printere sawirka u daa kuwano sideeda u daa waxaan leenahay finish qaabka markaanu u dhisno waxaanu leenahay maxay yaree sizeka hee yaree qaabkaa u yaree adigoo left click haya waxaan leenahay maxay ku dhowee aarooyada adoo isticmaalaya qaabka ugu dhowee waxaanu leenahay xogay in yar soo yar weynee qaabka usoo yar weynee way markaaynu qaabka usoo weyneyno waxaanu tegaynaa laba button baa inoo hadhay hareeraha ah navigationisa waxaanu leenahay maxay qaabka u weynee tusaale ahaan oo kale qaybta navigationka ugu sarreysaynu ka tegaynaa kan waa kaas labadaa option ee isku xiga baad midun labadaba isticmaalaysaa waxaan leenahay aarowga marka xaggan xiga inuu isticmaalayna mise ka xaggan xiga waxaad u isticmaalaysaa go to the next oo aarowga isagaa ku tilmaamaya sawirkii waxaad tidhahdaa next waxaad tidhahdaa sawirka igu daa waxaad tidhahdaa finish qaabkaas oo kale uu finish garee waxaanu leenahay waynu yaraynaynaa aarowyada ayaynu halkaa ka wadaynaa way qaabkaa markaan u dhiso waxaan leeyahay kii ugu dambeeyey soo geli ama shaqadii ugu dambeysay ha la qabto waxaan leeyahay maxay shaqadii ugu dambeysay ha la qabto waxaan leeyahay waxaan tegayaa preview kan iminka dambe waxaan leeyahay isagoo xaggan u jeedaa next day way waxaanu leenahay next kadibna waxaan leenahay finish qaybkaa markaan u dhisno waxaan leenahay isagana yaree oo qaabkaa u yaree waxaan leenahay rar oo halkaa movementiga gee tusaale ahaan oo kale kan iyo kan way kala yara weyn yihiin siska sar leekaysii qaabkaasoo yaree way qaabka markaan u dhisnay labadoodiiba afartiiba markaan qaabkaa u dhisnay waxaan doonayaa inaan color siino waynu dooranaynaa markaan doorano halkan propertyga back color halka ay ku qoran tahay baa aynu tegaynaa waxaan leenahay back colorkiisu waa noocma back colorkiisu hee waa noocma waa kan back colorkii waxaad tidhahdaa colorkiisa waxaad ka dhigtaa maxay ishaa dambe soo furo colorkiisa waxaad ka dhigtaa maxay tusaale ahaan oo kale aan waxaan dooranayaa iminka midabka noocaasa way
kanna eeg labadii iska soo horjeedaba waxaan u doorayaa midab gooniya waxaan leeyahay baa kalarka tag kadibna ishaa soo fur waxaad ka dhigtaa isla kalarkii way labadan kalarna waxaan leeyahay iyagana laba kale ka dhig oo tusaale ahaan oo kale ka soo horjeedi oo qaabkaa noocaa ka dhig way noocaa markaan ka dhigo kaa ugu dhexdana waxaan ka dhigi karaa kalar isagana u gooniya oo uniika tusaale ahaan oo kale waxaan leeyahay kalarkiisa waxaad ka dhigtaa maxay kalaradii miiga dhammaaday waxaan leenahay waxaad ka dhigtaa green qaabkaasoo kale uga dhig way intaa markaan dhumino waxaan leenahay save control s ama right click save markaaynu save garayno waxaan leenahay maxay design viewgeena form viewgeena nagu celi kadibna qaabkan uu soo kacayaa way form viewgeenu qaabkan uu noqonayaa qaabkan markuu form viewgeenu noqdo xog baynu ku ridi karnaa ka saari karnaa waxaan leenahay xog baynu ku ridaynaa way formkiinu markuu qaabka noqdo waxaan leenahay xog baynu ku ridi karnaa kana saari karnaa way imika leen operators baynu sameynaa waxaan leenahay new marka new niraahdo mid cusub inoo abuuraya waxaan leenahay halkaa waxaan gelinaynaa id-ga 7 waxaan leenahay tab waxaan leenahay halkaa waxaan gelinaynaa axmed oo kale waxaan leenahay tab waxaanu leenahay maxay xasan baynu gelinaynaa halkan waxaan leenahay tab halkaana waxaanu gelinaynaa cumar tusaale ahaan oo kale waxaan leenahay tab halkan facultygii baan soo dooranaya ishaasaan furaya waxaan leeyahay shareeco oo kale waxaan leeyahay departmentkiisuna waxa weeyaan intermediate dhexdhexaad intermediate qaybta dhexe ayuu ku jiraa way halkan baan tegayaa waxaan leeyahay phone numberkiisa qaabkaas oo kale waxaan leenahay qaybtan numberkaa geli tab dheh way kanna numberkaa geli tab dheh way adresska waxaan leenahay tusaale kale hodan waxaan leenahay daatada date registrationka ishaa soo fur 18 qaybkaa marka nu diiwaan gelina sawirkana weyn tegina waxaan leenahay ishaa soo fur ama sawirka meesha waxaad samaysaa double click dheh oo kusoo kacaysaa add dheh waxaan leenahay sawir soo geli tusaale ahaan oo kale waxaan leenahay downloadkeena gee tusaale kale ninka odayga oo kale soo geli waxaad tidhahdaa open waxaad leedahay okay qaabkaasuu sawirkuu soo gelaya waxaan leenahay maxay save garay kadibna wuu inoo save garaynayaa hadhow markaynu doonayno inaynu xog raadino xaggaa waxbay nagama xigaane waxaanu leenahay imika markaynu doonayno inaynu xogta qofka raadino waxaan leenahay searchingka tag kadibna id-gii geli 7 waxaan leenahay enter qofkii wayna keenaya waxaan leenahay qofkii operator inoo daabac hadaan doono xaggan aynu odhan karnaa waxaan leenahay tusaale kale qofkaa maxamed oo kale maxamed cali waxaan kusoo darnay axmed soomaa maxamed calina naga saar waxaan leenahay maxay maxamed cali naga saar waxaan leenahay delete maxamed cali waa la saaraya yes way waxaan doonayaa inaan okay kasoo noqdo waxaan tegayaa maxay form registrationkaygii tablekeygii waxaa ku jira maxamed caligi waa laga saaray axmed xasan cumarkeenu diiwaan gelinay shareecada intermedia iyo waxaa dhan ka dhignay bayna oo soo saaraya qaabkaasaan u samayn karnaa uga faa'iidaysan karnaa form insha allahu tacaala waxaan kaloo samayn doonaa wax la idhaahdo main form qaabkaana formku waynu u samayn karaynaa si fudud wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan idin salaamay